munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen midowga ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Kenya ayaa waxaa ka soo qayb galay Soomaalida ku nool Nairobi, ururada bulshada, mas'uuliyiin ka socotay safaaradda Soomaaliyeed ee Kenya, jaaliyadda Soomaalida iyo marti sharaf kale. Xuseen Gaxnuug oo ah gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Kenya ayaa sheegay in la joogo xilligii caadifada qabiil laga gudbi lahaa, dhalinyaraduna ay ka qayb qaadan lahaayeen horumarka dalka. kelmadda koowaad waxaan la hadlayaa dhalinyarada aqoon-yahamiinta. waxaan rabaa aqoontu inay shaqayso. maanta waxaa caado iyo dhaqan iyo dabeecad aan ka dhiganay qof walbana uu arkay in ay caadi iska noqotay in qof masters, PhD, bachelor degree iyo professionals inta waxa la koobi karin iska wato, haddana aqoontii ay cadiifadi ka halaynayso. aqoon ay ku dheehan tahay cadiifad, go'asho, cudur iyo xanuun waxaa ka fiican jaahil aan waxba akhriin waxbana qorin oo wadani ah. Sidoo kale Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool Kenya ayaa xasuusiyay dhalinyarada in waajibaad qaran uu saaran yahay qof walba oo Soomaali ah. waxaan rabaa inaan xusuusiyo inuu dhammaanteen mid kasta oo naga mid ah inuu jiro wareeg taariikhi ah oo weligii soo socday maalinkan dhalanay ilaa maanta in walba da'diisa iyo gabar walba da'deeda ku xiran tahay. wareegaas taariikhigaana asagana waxaa socda oo na dul saaran waajibaad qaran level kala duwan leh, laakiin qaranka aan ka aado qof kasta oo naga midana waxaa looga fadhiyaa inuu qaaraan ku daro intuu rabo hal eekaado inuu qaaraan. Dr. Nasra oo ka socotay mid ka mid ah ururada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ayaa dhalinyarada ugu baaqday inay waajib tahay inay shakhsiyadooda bedelaan ka hor inta aysan ku fekerin inay dalka wax ka bedelaan. waxaan ka yaabaa dhalinyarada marka inta isku timaada ay dhahaan niyahu dalkii wuu burburay maxaan ku sameynaa. hadaa weydiisid oo tiraahdo dalka maxaan ka qabanaa, jawaabta koowaad oo ay ku siinayaan waxay tahay amniga, cadaaladda, garsoorka, xagga waruuxaas oo dhan waxba kama qaban kartaan idinkoona naftiina bedelin. first of all waxaa u baahannahay first of all inaan brainwashing ku sameyno cudurka gumaysigu uu lagu reebay oo ah qabyaaladda iyo qabiilka qurunka ah inaa iska daysaan. ugu dambeyn xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliyeed ee Kenya Mudane Xabiib Birmad Cigaal oo soo xiray kulanka ayaa dhalinyarada faray inay waajib tahay inay isweydiiyaan waxa ay ka bedeli karaan dalkeena. waxaa isweydiin mudan maanta oo tirakoob la sheegay xilliyo badan lagu celceliyay haddana dadkii ugu horreeyay ay lahaayeen 75% dalka Soomaaliyeed waa dhalinyaro. marqaatina idinku aad ka tihiin raggiinaan caawa halkan joogay iyo dumarba in dhalinyaradu 175 ayba ka badan tahay boqolkiiba haddii la qiyaaso bulshada inteeda abaabulan ama wax qabata. maxaan ka bedeli karnaa Soomaaliya? maxaan u qaban karnaa? maxaan tari karnaa? su'aasha Soomaalidu inay isweydiiyaan weeye. waliba dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan si gaar ah u farayaa inay dib isugu laabtaan, isuna abaabulaan siday dalkooda wax uga qaban lahaayeen. waa xaqiiqo in iftiin dawladnimo iyo wanaag iyo himilo wanaagsan oo noo muuqato. waxaan hubaa haddii aad taageertaan dawladda hadda jirta oo uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaad guulaysan doontaan meel kastoo Soomaaliya ka joogtaan. Cabdiqaadir Socdaal, warbaahinta qaranka, magaalada Nairobi.